Assalaamu calaykum. Hurdadu waa shay ka mid ah nolosheena, isla markaana bani aadamku aanu ka maarsan karin. Waqtigii u dheeraa ee la diiwaangeliyey ee qofku qaato hurdo la'aan waxay ahayd 224 saacadood oo u dhiganta 11 cisho. Waxaana tijaabada sameeyey wiil u dhashay Mareykanka oo da'diisu 18 jir ahayd sanadkii 1964. Celceliska cimrigeenu waa 60 ilaa 70 sano, sida uu Nabigu sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay. 3 meelood oo meel ka mid ah cimrigeenaasi waxaynu ku qaadanaa hurdo. Warbixinteenan maanta waxaynu ku qaadan doonaa macluumo ku saabsan hurdadaasi. Marka uu qofku seexdo ilaa uu ka soo toosayo, jidhkeenu waxa uu qabtaa shaqooyin aad iyo aad u tiro badan oo u dhigma ama kaba badan shaqooyinka uu maalintii qabto. Habeenka uu qofku xaalad caafimaad uu ku seexdo oo degan, hurdada uu qofkaasi seexanayo waxaa loo qaybiyaa 5 qaybood. Qayb kastaana waxay qaadataa 90 daqiiqo. Marxaladaha 5 qofku marka uu midba ka dambeysa uu galo, indhihiisu waxa ay sameeyaan dhaqaaq, kuwaasi oo kor laga dareemi karo sida qofku marka uu galo marxaladda riyada. Celcelis ahaan 35 daqiiq ayaa uu jidhku sameeyaa inta uu qofku hurdada ku guda jiro. Taasina waxay ka saacidaa inaanu jidhku hadhow toole kaboobyo iyo waxyaabo la mid ah aanu yeelan, ama qofku kala daadsanaan aanu ku soo toosin. Dheecaanada afka ee soo daaya dareerku aad ayay u firfircoon yihiin, waxaana qofka laga dareemaa marka uu soo tooso hareed ku samaysmay afkiisa. Taasi waxay ka caawisaa qofku inta hurda inaanu afku qalayl dareemin. Garaaca wadnuhu hoos ayuu u dhacaa daqiiqadiiba 15, waxaana uu qofku helaa xaaladaasi deganaansho iyo nasiimo. Waxaa hoos u dhaca heerka kulka jidhka, jidhkuna waxa uu dagaalamaa inuu heerkulkiisa hoos u dhigo. Taasina waa sababta qofka looga dareemo dhidid korkiisa saaran. Sidoo kale waxaa yaraadaa hormoonada sida caadiga ah sababa daalka iyo hurdo la'aanta. Heerkulka jidhku si aayar ayaa uu dib ugu soo noqdaa ilaa 5 subaxnimo. Uu ka yaryahay 1% markii hore sidii uu qofku ahaa jidhkiisu. Waxa bata unugyada ka shaqeeya qurxinta jidhka iyo wejiga, sidoo kale unugyada ka shaqeeya bogsiinta boogaha. Hurdo ku filan oo qofku seexdo waxa uu ka helaa faa'iidooyin aad u tiro badan. Inay suntu ka baxdo jidhka, inuu qofku helo xaalad caafimaad oo degan, inay maskaxdiisu nasiimo hesho. Waqtiga ugu fiican ee qofka la yiraahdo hurdo ku filan ayaa uu helay waa 6 ilaa 8 saacadood.